kulan wacan wanaagsan daawadayaal markaas naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka Samareeb TV qodobada warka Samareeb TV ugu dorkuranaya waxa kamid ah magaalada Jigjiga oo ka socda banaanbax weyn oo loogu soo horjeedo xasuuq la sheegay in afartu geysatay gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee wafdi hogaaminayo oo saakay u safray maamulka Jubbaland shil gaari oo dhimasho badan sababay oo ka dhacay dalka India dablay hubaysan oo ka soo jeeda gobolka Sool oo xalay afduubtay dad rayda qodobadaas iyo kuba kala dhameystiran u diyaar garow maalinimo Arbaca taariikhdu ay ku beegantahay 28 July 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuba kala dhameystiran dablay hubaysan oo ka soo jeeda gobolka Sool ayaa xalay deegaanka Aroli ee gobolkaas ka afduubtay dad rayd ah oo ka soo jeeda magaalooyinka Burco iyo Berbera ee Somaliland dadkan raydka ah ayaa la afduubtay xilli ay socdaal kaga yimaadeen beeraha xilan oo ka tirsan degmada Taleex ee gobolka Sool dablayda afduubka geysatay ayaa sida wararku sheegayaan lahib nin lagu magacaabo Cabdikariin Cali Nuur kaas oo muddo bil ku xirnaa magaalada Berbera Cabdikariin Cali Nuur oo u dhashay gobolka Sool ayaa Somaliland xirtay kadib markii uu dheer jar warbaahinta dhaliilo ka jeediyay gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya Cabdullaahi Abyan Nuur iyo wafdi hogaaminayo ayaa saaka u safray dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee ku wajahan Jubbaland oo ka kooban 5 xubnood ayaa goobjoog ka noqon doona doorashada aqalka sare ee sanatarada ka soo baxaya dowlad goboleedka Jubbaland oo maalinta Khamiista ka dhici doonta magaalada Kismaayo waxa hore ugu sugnaa Jubbaland gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xubno ka tirsan guddigaas dhanka kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta soo saaray liiska musharaxiinta qaar kamid ah kuraasta xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee laga soo dooranayo Jubbaland Axmed Madoobe ayaa shaaciyay magacyada 9 musharax oo u tartami doona 4 kamid ah ee 8 kursi ee Jubbaland ay ku leedahay aqalka sare iyo sida ay isugu beegan yihiin waxaana ay kala yihiin Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farataag iyo Ahmed Maxamed Jaamac 2 Xaliimo Jaamac Maxamed iyo Cabdirasaaq Maxamed Cismaan 3 Ilyas Bedel Gaboose Maxamed Ahmed Sayid iyo Sharmaarke Maxamed Cabdi 4 Ibrahim Yacquub Ismaaciil iyo Iftiin Xasan Iimaan dhinaca kale qoraal ka soo baxay guddiga doorashada heer gobol ee Jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashada aqalka sare ee Jubbaland ay dhacayso 29 July qoraalka ayaa lagu xusay ay tahay maalinta qabashada codsiyada ee diiwaangelinta musharaxiinta shirkadda soo saarta dawooyinka ee Bontage oo laga leeyahay Jarmalka ayaa shaacisay in ay soo saarayso talaalkii ugu horeeyay ee xanuunka duumada ama malaariyada iyagoo adeegsanaya tiknoolajiyada ay ku soo saareen talaalka looga hortegayo viruska corona shirkadda ayaa tijaabada talaalkan bilaabi doonta sanadka soo socda tiknoolajiyada mRNA ayaa si sahlan u soo saarta talaalada waxayna qayb weyn ku leedahay dhanka wax soo saarka talaalada kala duwan shirkadda Bontage iyo shirkadda ay iskaashadaan Pfizer ayaa talaalkooda COVID-19 ku soo saaray muddo ka yar 1 isbuuc shirkadda ayaa haatan doonaysa in ay soo saarto talaalka xanuunka malaariyada iyadoo adeegsanaya tiknoolajiyada in ka badan 400 oo kun oo qof ayaa sanad walba u geeriyoodaan xanuunka malaariyada kuwaas oo badankood ay yihiin carruurta ku nool wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya waxaa jira kaliya hal talaal oo cudurka duumada loo ansixiyay soo saaristiisa ayaa waxay saynisyahanada ku qaadatay in ka badan 30 sano wuxuuna waxtarkiisu yahay 30% oo kaliya madaxa barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in wixii loo gaaro Jimcaha soo socda waxa uuna ku baaqay in gargaar degdeg ah oo loo ogolaado in la gaarsiiyo gobolkaasi Tigray David Basley ayaa sheegay in 170 kolonyo sida shalay gargaar lagu xayiray gobolka ay dariska yihiin ee Canfarta oo maalmihii la soo dhaafay dagaal ka socdeen waxa ay arintan daba socota digniin dhawaan soo baxday oo ah in 400 oo kun oo qof oo ku nool gobolka Tigray ay wajahayaan xaalad macluul ah oo halis ah kadib muddo 9 bilood ah oo dagaal halkaas ka socday waxa muuqata in wali aanan la tixgelinin baaqyada caalamiga ah ee wada hadal iyo xabad joojin lagu soo afjaro
colaadda gobolka Tigray. Wararka ka imaanaya degmada Garbaciise ee waddanka Itoobiya ayaa sheegaya in shalay mar kale uu halkaas ka soconayo dagaal qaraar oo u dhexeeya Soomaalida iyo Anfarta. Soomaalida waxay sheegayaan in ay dagaalkan ku gacan saarayaan oo qayb ka mid ah magaalada ay haatan gacantooda ku jirto, hase yeeshee weli wax war ah kama hayno dhinaca Anfarta. Sidoo kalena ma jirto cid madax bannaan oo arrintaas xaqiijin karta. Dagaalka ka socda Garbaciise tan iyo Sabtidii ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dad badan oo rayd ah. Dhanka kale, magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa saaka ka socda banaanbax weyn oo loogu soo horjeedo xasuuq la sheegay in Anfar ka geysteen gobolka City. Dowladbaxayaasha ayaa ka caraysan weerarkii maleeshiyaadka Anfarta ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Garbaciise oo ka tirsan gobolka City, halkaas oo lagu laayay dad rayd ah. Dumar iyo caruur badan ayaa sida loo xaqiijiyay lagu laayay weerarkii u dambeeyay ee Anfartu ku qaaday tuulada Garbaciise, inkastoo markii dambe laga saaray. Iiraan ayaa Talaadii shalay ahayd sheegtay in ciidamada amniga ay xireen shabakad u shaqaynaysay Israa'iil, isla markaana ay qabatay kayd hub ah oo la doonayay in loo adeegsado xasilooni darro ka dhalata biyo la'aan oo dalkaas ka jirta. Waxaa sidaasi werisay warbaahinta dowladda. Iiraan ayaa inta badan cadowgeeda dibadda sida Israa'iil, Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya ku eedeysa in ay qalalaase ka abuurayaan dalka iyaga oo hurinaya dibadbaxyo iyo rabshado. Wararka maanta ka soo baxay dowladda ayaa yimid iyada oo ku dhowaad 2 toddobaad ay dalka ka socdaan dibadbaxyo loogu cabanayo biyari oo badankeed ka jirta koonfurta galbeed ee Iiraan, kuwaas oo isku rogay siyaasad kuna faafay qaybo kale. Mas'uuliyiinta ayaa ku eedeeyay mucaarad hubaysan in ay hurinayaan isku dhacyo intii ay socdeen dibadbaxyada. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ciidamada amniga ay rasaas ku fureen dibadbaxyaasha. Hubka la qabtay ayaa waxaa ku jira bastoolado, bamgacmeedyo, qoryo iyo rasaas, sida uu sheegay sarkaal oo aan la magacaabin, oo intaa ku daray in qaar ka mid ah kuwan waxa loo adeegsaday in lagu horiyo isku dhacyo intii ay socdeen dibadbaxyaasha. Weli ma jirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha Israa'iil. Ugu yaraan 18 qof oo shaqaale muhaajiriin ah ayaa ku dhimatay kadib markii gaari weyn jiray rakaab la socday bas marayay gobolka waqooyiga Indiya ku yaal ee Uttar Pradesh. Masaafada socdaalkooda oo ahayd 1300 kilomitir ayaa ku soo bilaabatay magaalada Haryana iyagoo ku sii jeeday xarunta gobolka ee Bihar. Shilka ayaana ka dhacay degmada Barabanki. Shilka ayaa dhacay saacadii hore ee Arbacada maanta. Qaar ka mid ah shaqaalaha ku dhex jiray baska halka kuwa kalena jiifeen gaariga gadaashiisa xilliga shilku u dhacayay. Yamuna Barsad oo ah kormeere guud oo ka tirsan booliiska degmada Barabanki ayaa BBC-da u sheegay in gaariga lagu soo roray wax ka badan tankiisa. Wadaha gaariga baska ah ayaa isku dayay in uu hagaajiyo cilad ku timid gaariga, hase ahaatee waxaa si lama filaan ah u dul maray gaari weyn sida ay sheegeen saraakiisha booliiska. Waa shil nasiib darro ah. Basku waxaa la soo saaray 140 qof iyadoo 65 qof oo keliya loogu talagalay. Waxaana qiimeynaynaa xaaladda qoysaska, ayuu yiri Masar Barsad. Waxa uu intaasi ku daray in baska uusan lahayn dariishad ama daaqad, sababtoo ah waxa uu lahaa qaboojiye, taas oo keentay in qaar ka mid ah rakaab wadada bartankeeda jiibsadaan. Ugu yaraan 30 ka mid ah rakaabka oo qaarkood dhaawacyo halis ah qaba ayaa lagu daweynayaa isbitaalka magaalada Barabanki. Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa Twitter-ka ugu tacsiyeeyay ehelada dadka mashaqada ku habsatay, isagoo ballan qaaday in 200 kun oo rubi u dhiginta $2,686 oo magdhow ah la siin doona qoyska dadka dhintay, halka kuwa ka dhaawacmay heli doonaan 50 kun oo rubi oo lacagta India ah. Dadka ka soo jeeda magaalada Bihar waxay badanaa aadaan gobolada hodanka ah oo ay ka mid yihiin Haryana iyo Delhi si shaqooyin ugu helaan halkaas.
shaqaalaha muhaajiriinta ah waxay badanaa isticmaalaan tareeno iyo basas oo ah hab raqiis ah oo lagu adeegsado Hindiya si ay guryahooda ugu laabtaan markay ka nasanayaan shaqooyinkooda. Antaas aynu ku saafmeerina warkaad kala socoteen Samareeb TV. Inta warkan war lamada kulma doono waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.